Brycia Miranda waa haweeney curyaan oo ka soo jeeda gobolka California ee dalka Mareykanka waxaana haweeneydan ay dhalatay iyadoo curyaana. Miss Miranda ayaa lahayn wax low ah waxaa sidoo kale ku adag in muddo badan ay socoto sida ay u sheegtay warbaahinta maxalliga ah ee dalka Mareykanka ka soo baxda. Balse gabadhan ayaa muddo ku jirtay barashada xirfadda qurxinta taasoo markii dambe ay ka qalin jebisay jaamacad ku taala dalka Mareykanka iyadoo ku guuleysatay inay noqoto shakhsiga ugu caansan ee ka shaqeeya xirfadda qurxinta dumarka ee dalka Mareykanka. Haweeneydan ayaa goob dumarka lagu qurxiyo waxay ku leedahay gobolka California ee dalka Mareykanka halkaas oo ay buux dhaafiyaan dad badan oo aad u jeclaystay xirfadda sare ee gabadhan ay u leedahay qurxinta. Haweeneydan oo hadda 32 sano jira ayaa tan iyo yaraanteedii ka soo shaqayn jirtay xirfaddan waxaana arintan ay u suurtagelisay inay ku mutaysato bilado kala duwan. Miss Miranda ayaa sheegtay inay leedahay macaamiil badan kuwaasoo maalin kasta ugu yimaada goobteeda saluunka ah waxayna aaminsan tahay in macaamiishan badan ay ku soo jiidatay xirfadeeda sare ee Rabbi uu ku manaystay. Haweeneydan ayaa caan ka ah dalka Mareykanka waxaana sanadku markuu ahaa 2017 lagu daray buugga la yaabka dunida lagu diiwaan geliyo ee World Guinness Record.